Once upon a time, waqtiyada ka mid ah, there were waxaa jiray two friends, laba saaxiib, named kuwaasoo lagu magacaabayay Omar and Noor, Cumar iyo Noor. They both labadoodiiba lived waxay la noolaayeen with their parents waalidiintoodii and came from waxayna ka yimaadeen wealthy families, qoysas hantiilayaal ah. Their parents waalidiintoodii supported ayaa taageerayay by sending ayagoo u dirayay them iyaga to the best schools iskuulaadka ugu wanaagsan because sababtoo ah they understood waxay fahamsanaayeen the value qiimaha of education ee waxbarashada. However, si kastaba ahaatee, the boys wiilashii waa not keen kuma aysan qanacsaneen on continuing inay sii wataan with their studies waxbarashadooda. The idea of immigrating fikraddii ahayd tahriibka in search kaasoo lagu raadinayay of a better life nolol wanaagsan was very popular ayaa caan ka ahayd among the youth dhalinyarada dhexdoodii. And both labadaba Omar and Noor, Cumar iyo Noor waa in stage waxay ku jireen marxalad of life nololeed where they dreamed taasoo ay ku riyoonayeen about inay ku saabsan going abroad inay dibadda aadayaan. This caused tani waxay sababtay them ayaga ay ku sababtay to neglect inay dayacaan their own studies waxbarashadoodii. When the parents markii waalidiintii saw arkeen that their boys in wiilashoodii were not interested aysan xiisaynaynin in their studies aqoontooda ama waxbarashadooda and were busy ay ku mashquulsan yihiin talking about inay ka hadlaan immigrating tahriibka, they tried waxay isku dayeen to advise them inay ka waaniyaan about wax ku saabsan the wrong path wadada qaldan of life ee nolosha they were taking taasoo ay qaadayaan oo ay marayaan wadadaasoo ay qaadayeen and the problem in dhibaatada they will be encountered ay la kulmi doonaan if they left haddii ka tagaan the town magaaladooda. They also sidoo kale advised them waxay ku waaniyeen waalidiintii carruurtooda to stay in school inay iskuulka joogaan to complete say u dhammaystirtaan their studies waxbarashadooda. The boys wiilashii however si kastaba ha noqotee could not be persuaded kumaysan qancin from the idea fikraddii ahayd of leaving ay ka tegayaan and began ay bilaabeen preparing inay isku diyaarinayaan for their journey safarkooda. One night hal habeen in a cloud of darkness and cloud waxa weeyaan daruurta oo mugdi ay noqotay habeenkii oo mugdi noqday they left waxay ka tageen town magaaladii without their parents knowledge ayagoo aysan ogeyn waalidiintooda. After traveling safarkii kadib for many days maalmo badan they unexpectedly si lama filaan ah met waxa ay la kulmeen a girl gabadh named lagu magacaabo hodan who went taasoo ka baxday taasoo aaday to school with them ay iyaga markaa la aadaysay. She was also on journey sidoo kale iyaduna waxay ku jirtay safarka in search lagu raadinayo of fortunes hanti lagu raadinayo and had left waxayna baxday iyaduna without telling her parents iyadoo aysan u sheegin waalidiinteeda. When they saw markay arkeen ay is arkeen each other midba kale markuu fiiriyey they were very surprised aad bay ola yaabeen and tried waxay isku dayeen to look away inay hore u sii socdaan. Eventually ugu dambeyn they greeted waxay salaameen each other midba kale wuu is salaamay. After finding out raadin kadib they were on the same journey waxay isugu jireen safar isku meel ah ayayba rabeen inay aadaan. They decided waxay go'aansadeen to continue inay sii wataan traveling safarkoodii together si wada jir ah inay israacaan. They continued waxay sii wateen on their journey safarkoodii sii wateen and were fortunate waxayna wateen hanti enough ku filan to cross si u gudbaan the border xaduuda without being caught iyagoo aan la qabanayn. Unfortunately nasiib daro none of them ma jirin mid ayaga ka mid ah
knew garanayay what to expect waxa laga filanayo of the long road wadada dheer and what danger iyo waxa halista ay tahay lay ahead hortaala of them iyaga halista ay hortaalona aysan midna garanayn. While on the road markay wadadii koreen, the three friends saddexdii saaxiibood encountered waxay la kulmeen many difficulties dhibaatooyin fara badan. They did not foresee ma aysan dareemaynin. It turned out waxay isu bedeshay the experience khibradii waxay isu bedeshay was not as easy midaan fududayn as they assumed it se iyaguba isugu dhaadhiciyeen would be inay noqonayso ay noqon doonto. Soon sida u dhaqsiyaha badan they run out waxay u carareen of food cuntada and the items iyo markaasi shayyaasha they had brought ay soo iibsadeen ama ay iyagu keensadeen with them iyaga ay wateen kuwii ayaga soo iibsadeen ayay u carareen cuntadii bay u carareen isay u cunaan. And their money lacagtoodii was disappearing fast sida u dhaqsiyaha badan ayay markaasi uluntay ay u dhamaatay. They were still in the middle wali waxay ugu jiraan dhex of nowhere meel ay dhex ugu jiraan. And they began waxayna bilaabeen iyagana worrying inay ka walwalaan when things markuu shaygu got worse uu sii xumaanayo. At last ugu dambeyn they arrived in waxay yimaadeen a dangerous land dhul halis ah they did not recognize ma aysan xaqiiqsanayn. They found themselves naftoodii waxay ka dhex heleen in a harsh land dhul markaasi aad u daran oo laga cabsanayo. And where there halkaasi waxaa joogay where there halkaas oo joogay dhulkaas oo joogeen and where there were halkaasoo ku sugnaa oo ay joogeen brutal bandits burcad naxdin leh oo cabsi badan who robbed kuwaasoo dhacayay travelers safarleyda and robbed kufsanayeenna women haweenka. It was the norm waxayba u ahayd caadi bay u ahayd for those people dadkaas caadi u ahayd in that land ee dhulkaas ku sugnaa to arrest inay xiraan the immigrating youth dhalinyarta safrayso dhalinyarta tahriibaysa and demand ay codsanayeen heavy ransom madax furasho culus payments inay bixiyaan for their release sii deyntoodii inay ku bixiyaan. On the road wadadii dhexdeeda bandits burcadkii robbed them waa ay dhaceen and beat waa ay garaaceen Noor and Omar Noor iyo Omar waa la garaacay very badly si aad u xun loo garaacay. Taking ayagoo laga qaatay what little money waxa lacagtii yareed the boys ee wiilashii had ay haysteen. Bandits burcadkii also sidoo kale took hodan ay u qaateen as hostage si markaasi qof la haysto oo kale oo qof dambi galay oo la haystay oo kale ayay u wateen u kaxaysteen. And rabbit waa la kufsaday iyadii. The boys wiilashii were badly hurt si oo markaasi xun ayaa loo dhaabacay and bleeding all over waalna laga dhiijiyey. But laakiinse they were more concerned waxa ay markaasi ku jireen welwel about ku saabsan their traveling companion rafiiqooda ama saaxiibkoodii la safrayay oo ahayd hodan ee laga qaatay ay markaasi ayay ayaguna ugu jireen welwel. Hodanna who was abused taasoo ama tii lagu xadgudbay in front of them hortoodii loogu xadgudbay and taken lagu qaatay by the bandits ay qaateen and taken qaateen by the bandits markaasi kuwii markaasi ahaa oo tuugadii ay markaasi wateen. They were sad way ka murugoodeen and they could not do ma aysan samayn karin anything waxna to protect say u badbaadiyaan iyada. And she was taken waana la qaatay as they watched say iyagu daawanayeenba helplessly caawinaad la'aan ayagoo aan caawinaadna u fidin karin ayaa hortoodii lagu watay gabadhii hodan ahayd. Noor and Omar iyo Noorna finally ugu dambeyntii came waxay yimaadeen to a big city magaalo weyn ayay yimaadeen that wasn't taasoona ahayn the destination meeshii ama goobtii
they had dreamed of ay ku riyoonayeen. They suffered further aad bay ula dhibaatoodeen in the city magaaladii bay ku dhex dhibaatoodeen because sababtoo ah they did not know ma garanayn anyone cidna there halkaas cidna kamaysan garanayn ay kamaysan aqoon. In this new city magaaladan cusub they were completely alone si aad u dhammaystiran ama si dhab ah ay keliya ugu noqdeen. The boys wiilashii stayed in waxay sii joogeen a lot in badan in the strange place goobta ama goobaha koytada ah ee markaasi koyto waxa weeyaan meel adiga aadan lahayn oo aad tagtay sida marka qof qaxooti oo kale ah. As they shuffled say u dhibaatoonayeen the boys wiilashii talked to each other midda kale ayuu la hadlay and they decided waxay go'aansadeen to go back home inay ku laabtaan magaaladooda oo gurigooda inay ku laabtaan. And they went waxay aadeen to a local mosque waa masjidkii xaafadda ama magaaladii masjidka xaafadda ay aadeen and asked the congregation jamaacadii ay weydiiyeen for help caawinaad ay weydiisteen. The people dadkii who were there praying halkaa ku tukanayeen so waxay arkeen the suffering dhibaatada on faces wejigooda ka muuqatay of the two boys ee labadii wiil felt pity way u naxeen for them iyaga way u naxeen and gave them waxayna siiyeen money lacag to go back home ay marka wadankoodii kugu laabtaan. Finally ugu dambeyntii Omar iyo Nuurna arrived back at home magaaladii ay dib ugu soo laabteen. Their parents waalidiintoodiina were happy waxay ku faraxsanaayeen to see them inay arkaan. The boys wiilashii asked for forgiveness caawinaad oo waxay weydiisteen cafis bay weydiisteen from their parents waalidiintooda and expressed wayna u sharxeen dhibaatadii waxayna markaasi u sharxeen sorrow murugadii about ku saabsanaa how they had ignored sida ay markaasi isugu dhegatireen their advice markaasi waanadoodii ay isaga dhegatireen. They promised waxay markaasi ballan ku qaadeen that they will go back inay ku laabanayaan to finish say u dhamaystirtaan their education waxbarashadooda inay waxbarashadooda dhamaystiraan oo iskuulkoodii ku soo laabtaan ay markaasi ay kii ku qaadeen ee ballan ku galeen. After that horrible experience khibradaasi naxdinta leh kadib the boys wiilashii focused on waxay diiradda saareen their education waxbarashadoodii. Their experiences khibradoodii also sidoo kale served us to lesson waxay cashar ahaan ugu adeegeen to other kids caruurta kale who were planning kuwaasoo qorsheynayay to immigrate inay tahriibaan. They made their mission hamigoodii waxay ka dhigeen to talk say kula hadlaan to the other youth dhalinyarada kale about ku saabsan the dangers inay ugu hadlaan markaasi dhibaatada of immigration ee markaas tahriibka uu leeyahay. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa casharkeena maanta insha Allah. maantana casharka waxaa lagu akhrinayay book sheekadana waxay ahayd sheeko aad iyo aad u xiiso badan. fadlan haddii aad ka heshay nala wadaag si aan markaasi u ogaano in la xiiseeyo sheekooyinka noocan oo kale ah. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan maanta.